يا سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن markasto uu kordho isticmaalka waxa aad adigu haysato waxa kordhaya waxaad haysato si aad u isticmaasho يا أمتي عهدا بأن أتعلم marka si u eegtana runtii waa xaqiiqo sababtoo dadka xirfad ma laha daasway hata hoteelada magaalada ku yaqaan iyo biisrisyada ganacsiga ku yaqaan ay adduunka iyo wadamada diriska uga soo dhoofsanayaan dad inay yimaadaan iyadoo Soomaali dhoobanta maxaa yeelay qofkan kuma qaban kariyo waxa adiga aad rabto meeshaas maxaa ula jeedaa fursada labaad oo la rabo ku dhaweyn kara riyadaada waa ina shay muayana si la yaqaano u barato macna si la yaqaano oo aad sugitaan la dhahaa si fiican aad u barato waa very important hadii kaas aad si fiican u samayso dan waxa waaye wuxuu ku dhaweynayaa riyadaada inaad rumo bedesho qodobka saddexaad ma aragta hoos imaanaya fursadaha iyo awoodaha inaad ka faa'iideysato waa maxay oo runtii aad muhiim ku ah asagana waa calaaqaadka iyo xiriirka هذا ماشان إنا كو استاجا يعني ربعنا علاقات كرنتي وحلقية هذا ضد فرب بدن إني سفهم سنين معناها أو كفر اليوم أما واحد أولية علاقات معناها إنه حلول جدا إنا ضد عصب براتو ضد كاس عصبنا أو بدك تو واحد أدي أعتقانه مثلا هذا واحد سوق هذا الوقت كفايز وحلا قصو براتي كده واحد أتكون براتي يا سقتي أو سفي عن أي براتي كده محاجرة إنا إسبرتان أدراديسو ضد كواحد أدي أعتبرتا وباهن معنا وباهن شركتها وباهن ضدك عادي وباهن دن علاقات أبورته ما عليك استوقف كسر أبورته يقولوا لك صباح ضد وحاجة مثلا واحد أركيس أرضي فربنا جامعة وكبحي markuu jaamacad ka baxay gurigu iska jiifa markaas uu leeyahay shaqo magaalada la isaway waa lagu kala cararay marba aniga war tahriibaya waan waxaynaya hal maalin inta soo baxay ma uu sir iman xataa suuqa bakaaraha iyo suuqa xamarweyn iyo suuqyada waaweyn magaalada Muqdisho ku yaal asoo wax raadinaya lama kulmin dadkii oo wuxuu bartay la xiriir lama kulmin calaaqad ma abuurin war meesha ha fadhinin soo soco dhaqaaq al haraka baraka ay dhahan carabtu al haraka baraka marka dhaqaaqdo baraka ku jirta waxba ku imaanaya maanta markaad baxdo soo wareegto qof cusub soo bare waxba u sheegay waxaad u sheegto qof uu sii dhalaya laakiin haddaan iska fadhido calaaqad aadan abuurin waxba ku imaamaya calaaqaadku mararka qaarkood waxay dhahaan adduunka waxaa jirta maquulo ama hadal xigma oo dhahaysa waraa kull fursatin waraa kull calaaqatin fursa macna maxaa loola jeedaa علاقات كستو أبو تفرصة كذا بس فرصة أبو أما فهم قف عصبه أو كستو أو إسبرتان مال بوكا بحياة لكن أدي واحد تقان وين يجران قف كان مركب أو شيء اسمه أنا ترى أنا وحنا هاي هبل أو واحد كفي عن ماشي سوا فرصة قف كاس مسكحه وقوة هنا وحلاقيها مال ما كمية إنه فرصة دي أو أركو إذا مركب أو قصوى أو كل سوى حرير وقوة إذا قيادة هذا الرمح أو بدلي كذا إن أبو علاقات فربنا حتى علاقاتك وحيك عاونة يعني waxay ka dabooliyaan ama ay si fiican u dabooliyaan ama ay waxaynayaan lacagtii u dabooliyaan laano dadka Soomaaliyeed dadka la kulmo oo dhalinyarada dadka hamiga leh dadka wax kasta dadka warin wax ma qabsatido wariyadaada run u bedel wuxuu ku leeyahay ani maxaan qaban karaa lacag ma haysto waxaan haysto ma lahan faqiiran ahay meel aan ma lahan wax shay kasta wuxuu ka bilaabaa maskaxda lacagtuna ka bilaabato shay kasta lacagtu waa loo baahan yahay laakiin waa dambaysa waxa ka horeeya waxyaabahan kale ayaa aad iyo aad uga horeeya oo calaaqaadku ay uga horeeyaan in calaaqaadkaas in la abuuro waxay ka mid tahay asbaabta keeni karta inaan riyadaada run u bedesho oo sababka saddexaad ama qodobka saddexaad ee hoos imaanaya isticmaalida awoodahaaga iyo fursadaha qodobka afaraad muxuu yahay oo aan ku tirinay inuu kamid yahay fursadaha iyo awoodaha ku dhaweynaya inaad riyadaada run u bedesho waa maxay waa inaad isticmaalka ama adeegsiga inta aad haysato macnaheedu maxaa loola jeedaa shay kasto intaad haysato adeegso waxaa jira nin la yiraahdo aad caan u ah oo adduunka caan ka ah oo la yiraahdo Zig Ziglar macnaheedu waa nin Mareykan oo tababaro weyn ah waa nin runtii public speaking aad iyo aad khatar ugu ah shirkado fara badan ayuu aasaasay ayuu leeyahay ninkaas qaanuun caalami ayuu leeyahay buug wuxuu leeyahay la yiraahdo araka fil qimma carabi lagu turjuma I will see the top inaan kor ku arko waa yani inaan kor aad oo hoos joogin ayaan rabaa macnaheedu saas uu la jeedaa buuggaas wuxuu ku qoray qaanuun khatar ah ee dunida dhan la isticmaalo qaanuunkaas wuxuu leeyahay markasto uu kordho isticmaalka waxa aad adigu haysato waxa kordhaya waxaad haysato si aad u isticmaasho
معنى هذا مركان كسو علينا حاجة لازم نجا وفور معنى ما حلو نجيدا مركز تو استعماشه واحد هيسته يعني واحد أديك هيسته مركز تو استعماشه وحكرنا واحد هيسته سيئة استعماشه معنى هذا حلو نجيدا هدي مثلا علم يرأى تقانو علم جادتك جالسي وكرنا haddii aad haysato lacag yar $100 ah haysato maal gasho way kordhaysaa haddii skill iyo xirfad yar aad leedahay isticmaal way kordhaysaa shay kasto oo adiga aad haysato haddii aad isticmaasho waa kordha waqtigaaga hadda wax fiican u isticmaasho waa kordha calaaqaad hadda isticmaasho calaaqaadkaaga waa kordhaya shay kasto oo aad haysato haba yaraadee waa kordhaya war adduunka ma jiro shay ka qof adduunka guulaysta ma jiro oo guusha kor ka bilaaba guusha waxay ka bilaabataa hoos ay ka bilaabataa ninkii leeyahay Mahathir Mohamad oo aad maqasheen oo dunida Malaysia ka dhiga wadanka adduunka ugu horumarsan wuxuu gadi jiray alaaba yar yar oo gadi jiray Erdogan saas oo kale todo ahay dunida dadka kore dadka adduunka ganacsatada shirkadaha sameeyay saas yahay waxay haysteen oo yar ay ka bilaabeen laakiin dadka faashiliinta oo fashilma marka tiraahdo war adiga wax ma sameeysid wuxuu ku leeyahay war aniga maxaa sameeynaya maxaan hayaa maxaan ogaa lacag ma haysto wax ma haysto war adiga waxa haysata bilaab dadka perfectionist iska dhaaf معناه waxa loo jeedaa wax boqolkiiba ma jiraan inta adiga aad haysato kaliya isticmaal Soomaalidu waxay yiraahdaan ama aad ugu mahmaan Soomaaliya jirta oo caan oo barnaamijka runtii aad iyo aad la xiriirta oo barnaamijka aan isticmaalayna aan la xiriirto Soomaalidu waxay yiraahdaan saa rabta hadaa weyso saa ka badweysa la yeelaa macnaheedu qaanuunkan waafaqsantaa ay idin sheega zigziglan qaanuunkiisa waafaqsan saa rabta hadaa weyso saa yaani waxaad haysato markaas isticmaal laakiin waliga ha raadinin boqolkiiba boqol inaad wax aad raadiso kadib aad dhaqaaqayaan marka dadka taas waa dadka fashilma nolosha ku fashilma marmarsimahooda dad waxa arkaysa wuxuu ku leeyahay wax socda ayuu arkaa wallahi waxaan waa ugu jireen aniga oo maxaa u bilaabi weysay adiga maxaa u bilaabi weysay markaas uu leeyahay wallahi lacag ma aanan haysan waxas ma aanan haysan ma jiraan wax allaale waxaad heli karto isticmaal hadaad aqoon yar leedahay aqoontada isticmaal hadaad lacag yar leedahay maal gasho hadaad wax yar leedahay bilaaw kadibna waa dhaqaaqi kadib fursad ay helaysaa waa qaanuunka afraad qodobka afraad ee hoos imaanaya adeegsiga awoodaha iyo fursadaha aad hayso qodobka ugu dambeeya mararka qaarkood waxa laga yaabaa inaad sugaysaa dhalinyaradu ay wada sugayaan ama maskaxda u saageen ilayeen wax kasto waxay ka bilaabaan qodobka shanaad wuxuu yahay waa kii aad sugayseen waa dhaqaalo dabcan dhaqaaluhu waa loo baahan yahay waa very important waa muhiim laakiin afartii aan soo sheegay ayaa runtii aad iyo aad uga muhiimsan marka la joogo dhaqaalaha haddii dhaqaalaha fiiri qof kasta oo maanta aan la hadlo ama dhalinyarada ama aan yiraahdo war adiga dhaqaaq wuxuu ku leeyahay waxaan ku dhaqaaq ma lacag malihi wax ma sameeyo karo faqiiran ahay inta ka baxay waa inaan lacag hela idan lacagtu ku imaamayso lacagtu waxay u baahan tahay wadooyin loo maro habab loo maro ay runtii aad iyo aad ugu baahan tahay lacagta nafteeda waxay leedahay qasamaha lacagta adiga inaad haysato haddii aad haysato fikrad cajiiba oo raa'ica oo gedmaysa lacag inta rabtaad helaysaa hadda waxaa jira ganacsatayaal fara badan oo lacag macna la taagan oo dhahay waxaan u baahanahay qof keeni kara fikir shaqaynaya ee la maalgelinaya keenaya ma haysaa fikri lacagta waa lagu maalgelinaya lacagta waa diyaar lacagta waxaa ka horeysa inaad isticmaasho waxa aan soo sheegay ugu dambeynta in conclusionka xalqadan waxa ku soo gabagabeynaya please riyadaadii aad run ugu bedasho waxa koobaad ee lagaaga baahan yahay maxay tahay inaad isticmaasho awoodaha iyo fursadaha Ilaahay ku siiyay oo dhaqaaqdo oo meesha aad joogto aad ka dhaqaaqdo si arintaas aad u gaartana shan shay ayaan idin soo sheegay oo ay ugu horeyso waqtigaaga inaad si fiican u isticmaasho ay ku xigto inaad wax aad taqaano oo bulshada aad la wadaagto ay jiraan oo calaaqaadka علاقاتك إلى استعماشه أفر بحد استعماليسا خبرتها iyo way aragnimadaada ina si fiican aad u isticmaasho iyo kan ugu dambeeyo maalka iyo dhaqaalaha hadaad haysato ina si fiican u isticmaasho shantaas shay hadaad isticmaasho hal talaabo oo weyn ayaad u qaaday riyadaadii ina run u bedasho waa ustaad Mas'uud Weheliye oo idin rajeynaya nolol raaxo leh raad fiican iyo raali ahaanshaha eebe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن